idinka gabdha qurux badan baa tihiin waa iswada qurxiseen dharkaa iska soo dhigateen ninkan haddii uu idin firfiiriyo tooshkii wax ka damaya halkaas markaasaa dhiiggii annagu gadaal baan ku tukanay ilmo yareer baan ahayn dhiiggiisii baana soo gaaray faafa wadaad kale oo haddaba ilaa hadda joogana sheekh joogana oo xerta ka mid ahaana salaatu lcishaa baanu ku jirnay weliba maana iloobin meeshuu aabba u akrinaya sheekh alwaalid ida asamaa nshaqad buu akrinayay markuu maraya waama man uutiya kitaabahu wara'a dahri fasawfa yadcuu hubuuraa wayaslaa saciiraa halkaa markuu marayo waqaca calىa qafaahu fi اlardi kalkhashaba wuxuu ka sarajoog buu wuxuu uga dhacay qadaadka dhulka ka bilaabmay sidii loox ama khashab la tuuray oo kale ama loox ayuu saas u dhacay halkaas markaasaa dhiiggii annagu gadaal baan ku tukanay ilmo yareer baan ahayn dhiiggiisii baana soo gaaray faafa dabadeedna isagoo dhan baa markaasaa muddo dhan la booqanayay jiro loo booqan أين هذه النماذج؟ أوي نماذجاس وين اختفت؟ آيفون baa la tegay Galaxy baa la tegay waxaan u malaynayaa waa qabla الآيفون min maalintii ay cuntadu xumaatay min أيام ما فسد الطعام ودخل فيها ما دخل لأن berigaas banaan lama aqoonin dollar lama aqoonin meel wax looma dhoofi jirin dadku risqigaas iska cuni jireen أهل الله baa lahaa والله إني لأتعجب يوما من الأيام الوالد رحمة الله عليه salaada marka laga baxay saa u fiiriyey markaasuu arkay uu u maleeyey أنهم شوية في غفلة salaad baabad ka bax isna wuxuu filayay salaada marka laga baxo in يعني آثار الخشوع تبقى في الإنسان يعني له والله salaada dhexdeeda baanu yaanu ku sahwina xataa fi الصلاة كأني waan iska yaraa laakiin waxaad moodeysay inay yaabba la ahayd qof salaada ku jira oo adduunya ka sheekeysanaya inuu jiro كان عنده شيء غريب arrin lala yaabana ma aha لأنa markuu qofku waktigiisa naftiisa uu la xisaabtamo oo waktigiisu uu muqadar yahay والله ما كان عندهم لعب كان حياتهم جد beri baan meesha بلجيكا يعني nin ku arkay cajiib leh oo maqribi asalkiisu yahay laakiin dee dadka meesha ku dhashay dhulkuu fiiriyaa meel kale ma fiiriyo marar baan isu raacnayo waan u fiirsadayo waxaan dhulka ahayn ma fiirinayo kor wuxuu fiirinayaa keliya markuu laamiga goynayo bas si aan baabuurta u dardarin laakiin inta kale hoos buu fiirinaya korba ma fiirinayo sheekuu sheegay marka sheeko cajiib leh sheekadii waxay ahayd waxaan tegay buu yihi meesha oo xafiiska laga qaato warqadda caddaynaysa qofku inuunan xaas lahayn xaas buu guursaday wuxuu rabaa inuu keeno inuu guursaduu rabaa marka waxaa la yihi warqad keen caddaynaysa inaadan naag qabin yani hadda ka hor waa jira sooma qanuunka halkaa marka xafiiska wuxuu yihi banaanka furiinka keen waaya marka wuxuu yihi warqadda marka xafiiska nagaa ka wada shaqeynaya kullu waa naago waana wada gizaas wuxuu ka samaysan yahay dhalo marka wayna arkaan buu yihi aniga marka waan soo socday xafiiskii mid kalea la socday oo cabdilkhaaliq leena marka wuxuu yihi waa nimid hoos buu fiirinaya marka naagtii meesha mas-uulka arrintiisa waraqaha ka ahayd ayaa la yaabtay ninkan muxuu ii fiirin layahay way xanaaqday marka ninkan aniga ninkan muxuu ii fiirin layahay kii kale ku yiri ay ku tiri leesh ninkan muxuu ii fiirin layahay marka ninkan nin cajiib lu ahaa
wuxuu ku yihi ninkan wuxuu kuu fiirin layahay makuu sheegaa markaasay tiri ninkan wuxuu yihi wuu guursanayaa okay bay tiri ish ilmushkila ninkan wuxuu yihi wuu guursanayaa waxaa yihi haddaan tusaale ahaan kuu sheego qofkii haysta buu yihi toosh mataqaana toosh bateriga leh toosh bateri loo haystaa maalintii oo qoraxdii jirtay ayuu tooshkii shiday oo meelaha ku fiirfiiriyey habeenkii markuu yimid tooshkii oo eber waa u shaqeyn waayey leanna baterigiyaa dhamaaday maxaa ka wadaa bay tiri waxaan ka wadaa idinka gabdha qurux badan baa tihiin waa iswada qurxiseen dharkaa iska soo dhigateen ninkan haddii uu idin fiirfiiriyo tooshkii waa ka damaya hadduu idin fiirfiiriyo ninkaan inuu guursaduu raba tooshkii waa ka damaya naagtii waxau yihi intay kacday oy istaagtay oy habtay oy tiri ya ma saasa saas darteed buusa ii fiirinin wallaahi waa arrin wanaagsan bay tiri aada u fiican waana taan la-nahay oo ta ugu muhiimsan ee raggeena laga laayahay waxaa tooshku ka wadamay marka waxay tiri maanta ninkan waan siin karaa waraaqda laakiin ma raba inaan siiyo shir baan sameynaya ninkan arrintiisa waa in laga sheekeeyo berita ii kaaleya kii baa igu yiri wuxuu yihi maalintii dambaan nimid marka maadaama meesha ay wada dhalo tahay ninkii oo ila socda aan wada soconno ayaa waxaan arag buu yihi xafiiskii oo naagihii shaqeynaya o dhan intay soo wada kaxaysay ay leedahay fiiri wakaa ninkii wuu soo socdaa hoos buu fiirinaya kor ma fiirinayo hoos buu fiirinaya waa yimid way la hadlaysaa kor ma fiirinay abadan wejigeeda ma fiirinaya hoos buu fiirinaya waa la hadlayaa hoos buu fiirinaya marka waxay tihi arrintan yaa idin waa diinteenna qur-aankeena saasa wallahi diintiina xaq wey waa dhab wey kulligeedna waa inaan islaamka galnaa bay tiri bu marka ma aqaan inay islaamtay iyo in kale laakiin arrintii baa aada cajiib ula noqotay waana sax markaad munkar iyo bakti iyo qurun iyo wax xun aan daawanayso noloshaadii oo dhan baa daciifaysa oo dhinaca kastaad ka daciifaysa diinan wa dunya marka qad lbasari muhim jiddan wa ana axwajukum ilay aniga idinku xaajo badan wallahi idinka waxaa baan u malaynaya intaad iska barateeno meelahan iska joogjoogteeno inagu meelaha markaan ka nimaadno allahu aclam bixaalina ilaahi subxaana watacala qad albasarka allah na siiyo غض البصر مع قيام الليل ترتقي بجناحين إلى الله إلى الدرجات العلى